And it made me wanna write a song. Cause I needed you to know that you're my girl and we're a team, girl. You complete my dream, girl. And I'll never be moving on. I'll be there by your side when times are rough. You're feeling down, girl. I'll still be around, girl. My mama, she likes you and she'll like everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Cutiya channel. Kayga waxyaalo badan ayaa insha Allah biidnillah soo galiya. Sida lifestyle-ka, cuntooyinka, jirka waxyaalaha la mariyo, qisooyin ku dhacay walaalaheena Soomaaliyeed, iyo waxyaalo badan challenge, riwaayado waxyaalo badan aan soo gelin doona insha Allah biidnillah. Qaar ka midna hadda waa soo galiyay. fadlan subscribe taha iga iloowin, like ta sidoo kale ha iga hilmaamin, commentigana muhiim u yahay waa ii dhiirigelin. asxaabteeda qaaliga maanta waxayna la wadaagayaa qiso aad u xanuun badan, qiso jacayl oo aad u xanuun badan oo ila soo wadaagtay gabar asxaabteeda kamid ah. runtii aad iyo aad ayaan u qoyrooday asxaabteeda qaaliga. haddii adiga sidoo kale ay isbedeshid, dareenkaagu isbedelo, iska dulqaado insha Allah biidnillah. sidoo kale waxay iga codsatay inaan magaceeda isticmaalin oo kaliya aan inla share gareeyo qisadeeda. gabadhaas waxa waaye oo walaasheen qaaliya. waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu samari iimaan ka siiyo jacaylkeeda. kale wuu ka geeriyooday adduunkan uu uga tagay kaligeed ku cidleeyay. sidoo kale waxaan inii sheegayaa asxaabey, haddii adiga aad jeceshahay inaa qisadaada mid farxadeed, mid murugo iyo mid maxaa la dhihi jiray si kalaba ah, haddaad jeceshahay inaan soo share gareeyo ama aan asxaabteeda la wadaago, description-ka hoose ayaa inii soo dhigayaa Facebook-gayga iyo email-kayga. halkaas igula soo wadaag insha Allah biidnillah. haddii aad jeceshahay codkaaga in magacaaga in magacaaga in lala wadaago asxaabta, iyo haddii aad rabti in laga reebo labadaba igu soo qor. aad iyo aad baa u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. asxaabey, qisadan qiirada badan oo aadka u xanuun badan sida tan ayay ku bilaabanaysaa. gabadha walaasheena waxay joogtay Soomaaliya, iyadii lamaanaheeda ka dhintay. aad iyo aad aan uga xunnahay. marka asxaabey, waxay tiri gabadha sidaan ayay sheekada ku bilowday. waxay tiri aniga iyo walaalkay waxaan joognay Soomaaliya, waxaan ahayn arday dhiganaysay dugsiga sare. wiilku wuxuu ahaa form 4, gabadhuna waxay ahayd form 1. marka gabadhii wiilku aad iyo aad isku jeclaayeen. asxaabey, qisadan qiirada badan oo xanuunka badan sida tan ayay ku bilaabanaysaa. aad iyo aad aan uga xunay walaashay qisadan ku dhacday oo xanuunka badan. marka aan u gudagalo sheekadeena ama qisadeena. waxaa dhacday gabadhii wiilka Soomaaliya joogeen, aad iyo aad bay isku jeclaayeen. horta kowdii hore waa inii soo sheeko dhaafay. gabadhu iskuul bay wada dhiganayeen wiilka saaxiibkeeda oo ka dhiman doona. marka sanadkaas ay macnaha qisada say noola soo wadaagtay, sanadkaas wiilku wuxuu ka baxay form 4, gabadhan waxay dhiganaysay dugsiga sare oo form 1. marka waxaa dhacday gabadhii wiilkii aad iyo aad inay isku sii jeclaadeen. marka wiilku wuxuu kasoo jeeday reer sabool ah, mana uusan awoodin inuu gabadha guursado. gabadhiina waxay tiri aniga haddaan noocaan tahay isma guursan karno, sababtoo ah ma suurtagelayso oo dhanka familka ayaa dhibaato ka jirtaa. wuxuu sameeyey wiilkii, wuxuu go-aan ku gaaray saaxiibadiis ama jacaylkiisa ama lamaanihiisa siduu ku heli lahaa inuu falankeeda qabto ama uu wadadii uu raadiyo wadada ku heli lahaa. gabadhii wuxuu u sheegay inuu darteed u tahriibayo oo Yurubtaas u galaayo oo naftiisa uu biinaynayo. wiilkii wuu tahriibay, Liibiyuu tagay. Liibiya markuu tagay in muddaabuu ku noolaa. halkaas waa iska garanaysaa, ilaa lacag lagaa bixiyo wareer badan aad martid oo maxaa la dhihi jiray ay dhibaato weyn kugu qabsata meeshaas. wiilkuna wiil aad iyo aad u danyar buu ahaa oo isla markiiba ma awoodin inuu laga bixiyo maxaa la dhihi jiray tahriibta ama jidkaa la maraayo. marka uu la soo xiriiri jiray inta halkaas ay joogeen, mar walba codkiisa halkaas ka wada xiriiri jireen. waxayna ka wada xiriiri jireen kool caadi oo saasana barigaas ma jirinin. waa adigu waa qisadu mar hore waaye. message bay ka wada xiriiri jireen ama email oo markaas hotmail bay ka wada xiriiri jireen.
marka halkaasay uga wada hadlaayeen. hameenkii ugu dambeysay oo Liibiya uu ka baxayay buu la soo hadlay. macanteedii waan baxayaa buu dhahay, waxaan aadayaa maantaan doontii raacaynaa. markaas warkiisa ugu dambeysay bay tiri, codkiisa iyo muuqaalkiisa iyo aragiisa markaas ugu dambeysay. markaa ka bacdi wiilkii wuu baxay, doon ayuu raacay. doontii waxaa dhacday inay maxaa dhihi jiray, doontii adigu waxaa loo maleeyaa inay qallimantay ama badda ay ku gudoontay, waayo gabadhii in muddo ah maysan wax wara kamaysan helin wiilkii. waxayna ku ballameen saas markuu u tago oo uu tago Talyaaniga inuu qofka ugu horeeyo uu la soo xiriiraayo ay ayada tahay intuusan familkiisa la xiriirinin. marka waxaa dhacday gabadhii inay in muddo kaligeed ahayd oo jacaylkii ku kaliyowday oo aad iyo aad ula qiirootay oo heer u gaaray bay tiri. kolay aniga message-keeda markaan aqrinayay aad iyo aad baan uga qiirooday, dareenkayga aad u isku bedelay. marka waxaa dhacday gabadhii in muddo markay weyday wax hadal ay ka weyday, waxay raadisay wiilal saaxiibadiis ahaayeen oo markii hore ay isku ogaayeen. waxaa loo sheegay wiilkii inay doontii la qallimantay oo halkaas uu ku geeriyooday. gabadhi waxay tiri markaas waxaan dareemay aad iyo aad murugo u badan. hadal iyo dhammaantiis gabadhi waxaa dhacday inay wiilka aad iyo aad u raadisay. asxaabtiisa markay waxba u sheegi waayeen oo raad fiican ay ka weyday, waxay raadisay wiilka familkiisii. wiilka familkiisa waxa ay u sheegeen inuu wiilkii dhintay oo geeriyooday. ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ayada iyo intuu ka geeriyoodayba. kabacdi gabadhii sidaasay qisadeedii kusoo dhammaatay. adinkana waxaan jeclahay inay la soo wadaagi doontiin qisadii hadday qiso jacayl ama mid oo murugo kugu dhacday. qaaliga aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa fiidiyogan daawashadiisa. subscribe dheh, gambaleelka furo, like garee, share dheh, inala soo wadaa qisada rabti inaan kaas kasoo sheekeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.